galbeed ummadda koonfur galbeed iyo shacabkeeda ayaan tacsi u diraynaa waxaan ahay wafdi ka soo gurmaday dowladda federaalka oo u soo gurmaday dhibaatada meeshaan ka dhacday inaan la qaybsanno waxaan keennay deeq daawo ah waan idin garab taagannahay insha allahu wixii dhaawac ahoo bannaanka u baahanna waa qaadaynaa wixii inta wax looga qaban karana waa garab istaagaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan cambaaraynaynaa dadka dhiiggooda bannaystay dadka masaakiinta shacabka soomaaliyeed oo habeen iyo maalin inay dilaan go'aansadeen kuwaasaan cambaaraynaynaa waana la iska celin doonaa insha allahu aad iyo aad u mahadsantahay maxaan dhahay si degdeg ah gargaar u gaarsiino reer koonfur galbeed waxaan run ahaantii aan ugu tacsiyaynaynaa dhibaatada dhacday waxaan idin leenahay waa idin garab taagannahay ilaahay hadduu yidhaahdo inta dhimateen ilaahay u naxariiso inta dhaawacna intii xaaladooda ay saamaxayso inaan hore u qaadno ayaa nala amray oo na waajib ahaana na saaran ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan ugu tacsiyaynaynaa ummadda reer koonfur galbeed dhibaatadan dhacday waxaana leenahay marxaladda lagu jiro darteed in ay ummaddu ay mar waliba foojignaato kana foojignaato acmaasha noocan oo kale amnigan in uu priority ugu horeeyo uu noqdo ayaan ku talinaynaa ilaahay idinkiisa waana wada mahadsantihiin mar walban garabkiinaan taaganahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi أجمعين. أما بعد حويرات الدولة في الصومالية وزير حقيقة وزارة عافيمات الدولة الفدرالكا وزيركا تمرت بيها لبعض الصعود الدولة الفدرالكا كمان كما السلامة سنة تبحان halkan uga tacsiyeynaya shacab weynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Baydhabo dibkii shalay maqribkii galbihii ka dhacay magaalada Baydhabo waxaan leeyahay intii ku dhimatayna Allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna waxaan leeyahay Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan xukuumadda federaalka Soomaaliya aan uga mahadiyo iyo wafdigan deeqdan daawada maanta ay soo gaarsiiyeen iyo sidoo kale marka garab istaageen shacabka reer koonfur galbeed ee ku dhaqan magaalada Baydhabo dhibkii soo gaaray sidii wax looga qaban runtii waxaan cambaaraynayaa sida shacabka iyo mas'uuliyiinta iga horeysay ay qabaan dadkii ka dambeeyay falkaas waxshinimada ah fulaynimada ah qofka bini aadamka waan waxba galabsan kaasii jeeda attentionkiisu ugu soo jeeda ninka sida gaadma ah oo fulaynimo ah raganimo ka fog u soo weerarayo ayaan cambaaraynaya dadkii ku kacay ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqay meel walba ay joogaan inay isu biirsadaan cadowgaas badnaystay dhiigooda inay si macna darraha u daadiyaan inay iska qabtaan meel uga soo wareejisaan runtii hay-adaha amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayagana waxaan amraynaa خصوصا حلقان أنو كجرنا وحل حساسي إن هوشي سجد أمنية الشعب كأوهين إن أنتي اللي في جنانتبا أنتي هيد إن لقسي لبلابو اللي في جناد اللي كرديو أمنية نوعه اللي حوجيو دتك اسكت ديانا إن يقلق الجليان بوشدان أبوران حالد أنا نجرين الشعب كاس ندي جوذا إبنايستان هيدا أمنية وحانو كعصنينا فرينا إن جعان أضرب برا لقبت الشعب كانوا حانو باقيا إن جعان قصيان هيدا أمنية سجداس أمنية للسجاي مرلبات وحان وجمعت علينا يا حكومة الفدرالية الصومالية ليقدر إن السوق جارسيسي يصير أي نوجسوق متى الشعب كاس وحلو وأنا مع السلام عليكم. السلام عليكم. السلام قادم من الله اسم الإله من مجانا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي النهار الشلي عدوه قاعد ملك إلي ونفتسنا اللي قايد كان حلقي كنت أنت كتمت إلهي وإنا وعيدا النهار أنت كتلاو عن تين إلهي ولم تطوغنا إلهي عافية وعافماد إلهي سيو runtii cadowgan inaysan Soomaaliya qofkan keerna fadhaay lamuin layer kulma ama la usdaafo madaro aragahay tan min korreeyta runtii marbadan ay istaan hata Suudiyaan wali baaytay maalintii oo mi afar sanadkii hore dhibaatadii ku doranay Soomaaliya qaranka inay ummadda ka halaagan wayna diidayna dadku tan arrinteeda in lagu hadalo
ummadda Soomaaliyeedna wali goosatay 4 Oktoobar maalin halaaga in la arag waana hadal waana goosatay waana hadalay marka ummadda Soomaaliyeed iska raad doonta tan sahoy kamidoo doonta cadowga meeloon kula jeesado doonaan cadowga ma fakado doona idin leeyahay runtii wali baaha wala falkun soo dhigno gordo korna wala aan soo dhigno wali baaha shucuurta dadka oo kacsanay inta 4 kasta diyaar ah in lagu hadalo iyadana walku hadale waana walku hadalo runtii eedeeda ayaa wadii wal dhibaato oo wali baaha eedeeda dadkana dadku ku naxawmay dad diin wadada ma dad bani aadamnimo wadada ma dad xilweeyo ma dad oo islaamnimo weeyo ma dad Soomaalinimo weeyo ma dad oo fikir meel kale min guuri oo ummaduntan inay la baabiyo ummaduntan ay la rafaadi fikir showmid marka ummadda Soomaaliyeed ee ka soo roogay baaqay inay dadku inuu wada jeesadaan waana iyo laga la ku yaab in la ku araga in qabiilka warlan shabaab muddo fikir shaqada qabiilka islaamna marka dadka fikirkaas oo qaba in eedeed lagu dhaaro waana la isku ilaaliyo wali lu ku yaab dadkii oo inay guriyaasadaan wala ku aaman waan hal taban hal oo kala araga adeen ku dilayaan kan kale dilayaan dadka dhan dilayaan marka saas dartiye dadweynaha qaybta shirka reerka fuqalbeed walilana dadkan ahal isku ilaaliyo runtii reerka fuqalbeed dhamaantii oo taasiyana dhibaatada deedena waliba ilaahay inta reeba daawan laafi inta dhimati kulli dadka jannada oo ku gurguriyay ambarka diliyo yoon way balan ilaahay naxariisa ahladii oo ku dhimadan waliba lana samriya oo kusii dadka shaqada runtii idan kuma hanagaana lan allankii oo gacan ku jeesida oo internet oo la halaaga kadii lan allankii kaalmo jeesida oo wafdiga dowladda Soomaaliyeed ku socda wasiirka hogaamiyo kuma hanagaana waliba lana mahadsantiin wali kala zaayida la corona caalamka dhan oo baaqana inuu ummadunta ma dhibaatada deerti waan ku qabay dowladda Soomaaliyeed ee mahadsanto gaar ahaan wafdiga la deeqeena kuma hanagaana in dhakhaatiirta isbitaalka Baydhabo والجرمة كلية ذلك بدل سوري قلت ذلك بدل سوري الشعب وينها غير كونفرت البيت ما ملك ذلك أدلين إني أقول من المراجع الشباب شقيان كنت إيه ده الله وين المتصاصة إني ولي دبعت لي ذلك أنت يدا نفتح ولي بقول وما نجان ولا نستحق الدور ولا سوبي ولا نسوبي ومدون كان له جرمة ولا ولا قبضة إلهي إني أبني جن كنت سيدك الدنيا برلمان أبني هذا أبني جن يوم المدور هذا سياسة جفتنا هذا أبني يقول لك فذاي سياسة اليوم ما نحن أبني جن ولي بوها إيه نقطة حلق أبني إن لا أكيد لبانا مرة هذا أبني جن ولي فرانة إني يوم أبني جن لما كانوا قبضان dadweynaha qaybasha shirkii wali balana yoona inay yoona gacan siyaan qorsadaana walaalahan ama soomna dadaalkii badan iyo horta jireen runtii idan ma nagaana secretary dadaal badan iyo dalkan hayaan eedan ka mahadsanyiin wayna rajeeyeen inay amnigana la baraaro hadii shalay la sidikada inay geekana la sidikada wali geeku gudamba inay amniga lama gacmood ka qodobada lana linik aabu weelna inuu soo leeyahay ummadun kale dhibaatayaas inuu soo leeyahay fiirsan runtii eedo amniga waliba faraana inuu amniga dadaal badan geliya runtii eedeeda runtii toorayda wal dadaalay inta waa dadaalay lan naftis heligow oo dareero runtii sidii leen aragaya baa soo dhibaato laakiin waliba lana dadaal halka daro eeda la fiiriyo dadweynaha lagu faday arinteeda inuu yahay la xalan ku shakiya laakiin beledka gala laakiin jaakiis wala kulust inuu yahay eeda fiiriyo qoob kale adina ka dilay walaalkana dilay qaribaad marka taaseen waliba lana eedeeda fiiriyo marka eedeeda ka mahadnagaan alla intii oo madunta ma kaalmayas oo dhibaatada kaalmayas mahadnagaan saraakiisha dadaalka badan soo bixiyay dhaqaatiirta eedan ka mahadsanyiin dadweynaha eedan ka mahadsanyiin dowladda Soomaaliyeed
إلهي أسلك توزنا هان عدو المدة عدو إلى إلهي وقبضا وجدت سومالية من كستي روتن ولا يتمي فرق أكتوبر وصرنا للجماعسين اللي بتعمل استفسر بالكست أول بس عدو حتى كذا ولا عن حرية سوماليا جيك وحباتي حيسد كان دون جديد runtii dadko aqlasha ruxumi eed rafadi wali la soo gordo korna way isdilayaan dadkii dilayaan lan waxay iskarxiyaw yabi aadayna wala koob qodolaad dirnay iskarxiyaw marka dhibaatooyin marka arinteeda arin baahan waaye in eed fiirsiyo iskaashado isku wada jeesado isyaanashooyin isku juuli fadi inta fikir meeday fikirkaas oo horseeday